بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaanu ka uurdaarayna inaan jimcaad ku soo beegmanay taana waxa keentay qorshaha howlaha qaranka ee yaala oo aad iyo aad ciriir noogu ahaa taa raalli baa ka ahaanaysaan maalintii nasashada aad waxaan idinka mahadnaqaynaa jimcaha soo dhaweynta aad iyo aad u ballaaran ee kalgacalka iyo xamaasadda wadata ee walaaltinimo ee qarannimada aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa mahadnaqa kadib hadalkii halkan odayash ka jeediyeen wixii inoo qabsoomayna nalagu ammaani maayo oo waa shaqadiina loo diray dadka annagaa u nimid waxaanu dha doorta waxbaanu idiin qabanaynaayo qorshaanu haynaa qorshihii baa noo dhiibteen haddii aanu wada gudan oo dhammaynan alxamdulilah ilahay baa nagu wada gaaray wixii dhinmana maana hagrana danteenu baa hagratay qorshahaan ku talagalnay wixii dhinma waxaanu hagranay ma aha ee waa wax danteenu gaari wey qodobka labaadna waxa weye ood weyne iyo dhulkan sare ee taagga sare ah oo dhan biyihiisa hoose way fog yihiin ilaa wajaala laga soo bilaabo biyahana waxaa lagu heli karaa kolba intay awoodeenna iyo technologygeena iyo aqoonteenu gaadho marka biyo waynu qaban karnaa biyuhu dhaqaale u baahan yahay waxaan isleeyahay dhaqaalihiina somaliland dadkeeda ay biyo ugu qabato way haysaa iyadoona caawimo dabadeed iyo nacaawiya iyo ilaahay mooyaane cid kala baryin tusaale waxaan idiin siinayaa labadaa imika la qoday dam waxay ku baxaya milyan iyo waxoogay dollara haddii la ururiyo sekada tujaarta iyo kuwa dhexe iyo qurba jooga iyo hawjooga reer daad mareed sekadooda hadday isu geeyaan waxaan isleeyahay 20 dhanna way qodi kartaa mashruuc wal oo agoonteena iyo inta taagdaraleedayna waa la furin karaa marka waxay naga maqan inaynu xoolena farsamayno hadduu degmo wal iyo gobol wal hoos soo eegto waynu ka bixi lahayn ciddana aynaan garanaynin ilaahay mooye cid kale buri jiray aynu noo keena taana waxaan leeyahay ilaahay wuxuu ina siiyey haddaynu ummadda somaliland nahay gobol degmo waxaynu haysano sida ilaahay yidhina aynu sako iyo sadaqo iyo deeqsinimo ku darro oo dadkeena waynu ka saari karnaa dhibaatooyinkee waa inaynu taa ku tashano biyo dhaamiskii dhaweyto 90% somaliland baa bixisay hay-adaho dhamin 10% maaha waxay bixiyeen waxaanay ahayd in safgarashaha dadkeena ma waraabina war hebelow intaa nin kastoo waxaya intii bixisnaahay inta waaweyn ee waxaya heer qarana looga soo daadegin heer gobol taana waxaa le haddaan isku tashano wax baynu helayna qodobka igu dambeeya dalku waa nabad abaarna waa jirtaa hawlaha adduunku way badan yihiin badxidan baa jira dawladihii meelaha maxaa dibadda kasoo ogsan jiray dagaalaha ka socda waxaa laynoo baahan yahay inaanu fikirro oo fadhi ka kacno oo isku tashano dhaa sideebaynu cunto u helnaa dadkeena iyo carruurteenna sideebaynu noloshooda inagu xilkeeda u qaadna aynaan ku tiirsanaanin daqiiqdii india way xidhanaysaa imika maraakiibtii dawlada ka soo baxday ukraine way ogeedeen oo halka afrika o dhan quudinaysay waa soo xidhmaysaa dagaalada way sii ballaaranayaan hawlaha inala gudbo odhan mayno roobkaa yar kanaa dhacay aabbayaasheen iyo awiyaasheen dhulkun bay ku noolaayeen waxba may soo disa jirin waana isku filaayeen haddaynu maskaxdeena midayno oo waxaynu meel wada jeedino waanu ka bixi karnaa sida laakiin waxaa layna baray 30 sano iyo dheeraad cid aynaan garayaan baryayno hay-addan hogeela saan yeela waxyaalaha ugu waaweyn dalka maalgeliya ee tuulo weliba taqaana caalamkuba loo sheegay SDF baa jirta waxaa la yidhahdaa waa sanduuqa u gaarkaa somaliland dawladaha inoo dhan baa isugu taga 60 milyan ayay 5 sano bixiya markaasaa dadkii dhagaha lagu riday markaasaa kii qali lahaa iyo kii qurba joog ahaa ee isaga laga rabay dalka soo taro wuxuu xisaabinayaa SDFT waxa lagama siin gobolka degmadeeda may soo gaarin warada maxaad soo tartay adaa qurbaha tago xooggaagii la tagay xooggaagii horumarkana qofka madaxda ah dalka ama beesha hogaaminaya been ma sheego haddaynaan isku kalsoonaan haddaynaan ra'yigeena mideen haddaynaan iskaashanayaan sbirtis gelin qaran ahaan gobol ahaan degmo ahaan dhibaatooyin soo socda ka bixi kara man markaa taas waa ku talnay
see looga baxaa daba loo midooba somaliland inagu waxaynu qaadanay dimuqraadiyad dimuqraadiyadu waa hawl badantay way xanaf badan tahay ma naqaano dhaqankeena ma aha mararka qaarkood waxay nagelisaa waxaynaan u baahnayn iyo fawdo sanad walba waxaynu ku jirnaa cambaynka waa la isku dhacaa oo waa la iscaaya oo waynu ku colownaa oo ma naqaano waxaa laba marka laga baxana waa isku haraamaynaa inagoo tiora ka busba tii kale soo gelaysaa marka waxaan ii sheegayaa horta xisbiyada iyo cidda ka madaxdii wuxuuba waa dadkeeni waa wada saaxiiba dadkan waa idinku celinaya cabdiraxmaan ciro iyo aniga iyo faysal iyo gaboose iyo meel kasta dheh waa dad oo saaxiiba oo mid colaad xul ka dhex wargeel baa sahankiisa la isku qabta wargeela maanta saanka halkaa loo diro waar waa afduulno col baa joogay ka daa waar halkaa roobkeedu geed xunto fusheelada ka daa inta lagu murmaya waa intaa in laago waar dalka saasaa u roon iyo saasaa u roon waxaan ka xumahay dhalinyarada iyo dadka badan ee caadifiinta ay ku coloobaan oo ay colaad xubeen dhex marto oo dad inaga dhintaa waa ayaan darro waa nusqaan ku sawiran madaxda oo dhan inta hogaaminaysa ay ku ceebeysan tahay oo dembigeeda leedahay waayo dadku iyaga ay maqnay uma baahnin inuu qof ama neef oo inaga dhaawacmo ama inaga qoormo waa ayaan darro reedaad mareero dee waxaa haysataan marag aan cidid ku qabsan marag aan cidina cid ku qabsana idinku intaa noo sheegteen laydku wada raacsanyay bariga galbeed somaliland ayaa dee leedihi gobolkii suldaanada gobolkii talada gobolkii hidaha iyo dhaqanka gobolkii gabayaasha war haddana waxaasoo dhan sheegateen dee dadka wuxu sheego oo idinaha idinka muuqato dadka kalena waxaa tira waar walaalaada wadanahay ma odoogayne haydadakeenii soo ceshada haddii maqaaxii magaalada reeree loo kala duwo haddii shirka la qabanayo reeree loo kala fadhiisto haddii degdegba loo kala fadhiisto ogoba waxaad beenaysaa waa talaxumo talaxumadu goor dushay tegaysaa kursigu waa meerto iminka waxaan isku afkaranaya doorasho waynu ku coloobay dad baa laga dhintay waa yandar doorasho way imanaysaa waa qasab sidaynu u qabanaa wax habeen lagu dhamayn kara fahaata hal lagu dhamayn kara iyo waxaasoo dhan ugu haystaa waxaa leeyahay doorasho way imanaysaa iminka xisbiyadii urradii waa ordaaya oo le annagaa 10 sano mudan horta annaga hadal siiyo ta kalena way ku xidhisaa waxba ka dambayn mayso waayo waxaan u baahannahay diiwaangelinta ku baxda xisbiyada inta madaxweynaha lagu galo dalku ma qaadi kara barba diiwaangelin doorasho wareer ma wada qaadi kara waa la isu dhaweeya marka waxaan leeyahay ka soo socdoona waa naanidaada jiro dalka ka joogowdaas kusii dhajinin kow ka ahado waa laga arkaa inaan waxaan lagu leeyahay war ma waxaan tahay baan isku haynaa waqaalay ma waxaan tahay baan isku haynaa anna iskuma dhajin karo qaran baa ku taaganahay kasoo dayoona wad qaban doontaa marka waxa weeye amisaafkana hablaha cayda hanaga barina sodonaha afka hanaga barina shirka inay ka hadlaan waa foolxuma inagu taala af soomaaliga wax ku hadla sodoh ka hadashay inaan ka hadlaya ma jirto sodaan ka hadlo reer caya kuma jiro waa maxay waxa dadka ku dhacay waxaan doonaya inuu taa ka baxro haddaynu dowladda isla adduunka oo dimuqraadiyad u galaa inagoo walaalaa oo kaftamayna oo shaxoo kala ciyaarayna oo dad iska maaragtay dee walaalaa oo taa uu soo dirayna noqono oo aynu ka saarno cunfigiiyo waxa jira mise farinteedu kula waataa oo dowladda dalka dhan inaan mariyo anigu doorasho diyaar baan ahay waqtigeedana markii u horeysa lagu soo fikiray ku qabanay oo aan hagarasho lahayn cunfiga waa xaaraan xagga dowladda cunfiga inaan keeno waa xaaraan laakiin marka booliiska la shido ee xiriira soo weeraro ee xafiisyada weeraro dee maxaa lagu dhacaya la kala garan maayo adiga nastee ninka mudaharaadaya calankiisa ha qaato waa arrin madaxweyne xun baa tahay waxba maa taray waa lagu bedelayaa waana gola calan leer soo jiido hadal igu dheh laakiin naga daadee farqiya inaanu isticmaalmaan diyaaraan intaas baan isku haynaa aad iyo aad baan mar labaad ku hadlaqaynaa